Imaaraadka Carabta ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu waday faragelin toos ah oo uu ku sameynayo gudaha dalka Soomaaliya. Imaaraadka ayaa xiriiro dhow waxa uu la sameysanayay maamulka Somaliland taas oo keentay in shirkii u dambeeyay ee Imaaraadka Carabta ka dhacay uu ka qayb galo madaxweynaha maamulka Somaliland taas oo dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in xadgudubkii ugu weynaa ay tahay in Somaliland halkaasi laga casuumo. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo hadlay waxa uu sheegay Somaliland in ay qayb ka tahay Soomaaliya balse ujeedka ugu weyn halkaas looga wacay waxa ahayd sida uu sheegay khilaafka Imaaraadka iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya ka dhaxeeya. waxa uu sheegay in ay qorsheynayaan dhawaan qorshe istiraatiiji ah oo guud ahaanba la rabo in laga joojiyo mas'uuliyiinta dowlad goboleedyada in xiriir ay la yeeshaan Imaaraadka Carabta oo inta badan faragelin toos ah ku haya dowlad wanaaga Soomaaliya. Axmed Macalin Fiqi wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya waxa uu sheegay Axmed Madoobe Kenya ayuu tagay taasina waxa ay qayb ka tahay dadaalada dowladda Soomaaliya ay wado in guud ahaanba lagu xakameeyo maamulada in xiriirada ay la sameystaan dowladaha cilaaqaadka ay kala dhaxeeyaan. meesha kama uusan saarin in Imaaraadka Carabta wali gacanta ay ku hayso dhaqaalaha Soomaaliya qayb kamid ah taasina waxa ay tahay dhibaatada ugu weyn ee xilligan Soomaaliya haysato maadaama faragelin toos ah hadda ay wado. Puntland iyo dowladda dhexe oo Soomaaliya oo khilaaf uu ka dhaxeeyo ayaa waxa ay bilowday Imaaraadka Carabta in dhinaca hawada ay ka caawiso dagaalka iyadoo ku xumeynaysa dowladda federaalka Soomaaliya. Imaaraadka Carabta markaan waxa uu soo jeestay sidii guud ahaanba caqabad ugu noqon lahaa horu socodka dowladda Soomaaliya. muddooyinkii ugu dambeeyay khilaafka labada dhinac ka dhaxeeya ayaa sababay in Imaaraadku uu xiriir dhow la yeesho maamulada Puntland iyo sidoo kale Somaliland oo la og yahay in dowladda dhexe xiriir wanaagsan hadda uusan kala dhaxayn. balse markaan dowladda waxa ay wadaa qorshihii ugu weynaa oo halis ku noqon kara maamul goboleedyada si guud ahaanba aysan ugu tagin wadamada deriska iyo sidoo kale kuwa kale intaba. maadaama maamul goboleedyada qaarkood iyagu lagu eedeeyo in dowladaha deriska ay sidoo kale kuwa kaleba xiriirada ay la sameystaan marka ay isku dhacaan ama siyaasad ahaan ay kala duwanaadaan dowladda dhexe ee Soomaaliya. Somaliland oo hadda ictiraaf raadinaysa waxa iyadu markaan ay u aragtay fursad ah in Imaaraadka Carabta xiriir dhow ay la yeelato taas oo dhaawac ku noqon karta dowladnimada Soomaaliya. Imaaraadkuna waxa uu wadaa fursadiisii uu kaga faa'iideysan lahaa khilaafka kala dhaxeeya dowladda Soomaaliya marka la eego. balse dowladdu waxa ay sheegtay in guud ahaanba la soo afjari doono xiriirada maamulada isla markaana dhawaan ay noqon doonto dowladaha deriska sidoo kale kuwa kale caalamkaba in si toos ah ay ula macaamilaan dowladda dhexe ee Soomaaliya. Fiqi waxa uu sheegay mar dhow ma jiri doonto in cilaaqaad ay la yeeshaan Imaaraadka Carabta, Ethiopia ama Kenya ama wadamada kale balse guud ahaanba waxa uu tilmaamay in meesha ay ka saari doonaan dhibaato walba oo Imaaraadku uu ka wado gudaha Soomaaliya. waynu ognahay in Imaaraadku wax faa'iido uusan ku qabin Soomaaliya inay hagaagto balse markaan waxa uu qorsheynayaa in Soomaaliya uu kala furfuro. Ethiopia ayaa markii hore ahayd caqabada ugu weyn ee Soomaaliya oo maamulada iyadu iyo dowladda mar walba iska horkeeni jirtay. balse markaan Imaaraadka Carabta ayaa ku soo biiray isagoo isticmaalaya dhaqaalihiisa faraha badan isla markaana uu doonayo maamulada in mid uu siibto. Somaliland hadda gacanta ayay u gashay, Puntland sida ay si lamida gacanta ayay u gashay waxaana haray saddexda maamul kale ee soo haray. qaarkood xiriiro waxa ay la leeyihiin Kenya iyo sidoo kale Ethiopia. taasina waa culays sidoo kale dhibaato weyn oo dowladnimada Soomaaliya marka la eego. dowladdu waxa markaan si cad u sheegtay oo qarsoodi aan lahayn sababta Imaaraadka ay ula dagaali laayihiin inay tahay in guud ahaanba ay ilaalinayso in dowladdu ay yeelato saaxiibo markii hore ay haysatay in ay isku dhacaan oo ay kala go'aan ama xiriirka la jaro. balse markaan si diblomaasiyadeed ayaa la qorsheynayaa in maamulada guud ahaanba looga soo xirxiro irid walba oo markii hore ay u carari jireen marka khilaaf uu yimaado.